waxaa maanta magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya soo gaaray wafdi ka kooban madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo State Mudane Abdul Cagalule xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Khaatumo iyo waliba madaxweynihii hore ee maamulka Khaatumo Mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashe jaaliyadda Khaatumo State ee magaalada Nairobi ayaa wafdigan soo dhaweyn ugu sameeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta International Airport soo dhaweyn kadib ayaa waxaa halkaasi warfidiyeenada kula hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo State isagoo si kooban uga warbixiyay safarkooda. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Saaka waxaan ka soo baxnay Abarakoob iyo tobanadii magaalada Muqdisho. Hadda hore malaha shantii guddoon waxaan magaalada Nairobi. Waxaanu ka mahadcelinaynaa jaaliyadda Khaatumo ee Nairobi oo saacado fara badan ugu sugayay airport. malaha badi oo waa daaleen oo qaar waa iska tagtageen intii joogtay iyo inta tagtayba waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Si kastaba maalmaha soo aadanaya waxaa la filayaa inay kulamo la qaataan jaaliyadda Khaatumo State ee ku dhaqan waddanka Kenya iyadoo sidoo kalena aysan meesha ka marnayn kulamo heer caalami ah oo u qorshaysan wafdigaani. Axmed Darwish TV Nairobi.